وين ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيغا لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan noo socota taxanihii aan uga hadlaynay magacyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo aan marba magac ka bixinaynay sharaxaad intii Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo sahlay oo noo waafajiyo waxaan hadda ka hadli doonaa magaca Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee ah المتكبر قرآنك إلهي سبحانه وتعالى إلى 6 meelood bay ku soo aroortay oo ay kamid tahay العلي الكبير إن الله كان عليا كبيرا العزيز الجبار المتكبر siiqooyinkaas kala duwan ama siyaabahaas kala duwan bay quraanka ugu soo aroortay hadii la af Soomaaliyeeyo ereyga mutakabbir waxa jira laba ereyo aad isugu dhow oo ah al-azim iyo al-mutakabbir al-azim oo ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu yahay ilaah weyn oo azim ah المتكبرنا هدي الأف صومالية وحاقو دو إني نقونيسو اسم هذية oo إلهي سبحانه وتعالى أنبا اسم هذين كرا أو حكست أوقفك بني آدم كأود ويشو مقارسي سنيسو إنو أسوق أود ديسا أو اسكم هذيو سيدا درتد إلهي سبحانه وتعالى حقه بأن نقون كرا قاري كرا مرحلة الإرق اللي يراهدو الكبرياء إنو اسم هذيو وإلهي سبحانه وتعالى uunkiisa uu ka sareeyo khalqigiisa uu ka sareeyo cid kale oo asaga ka weyn oo asaga ka awood badan oo asaga ka maamuus badan inaysan jirin sida darteed Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay boqortooyo aan dhamaanaynin wuxuu leeyahay weynaan aan wareegaynin wuxuu kaloo leeyahay jalaala iyo weynaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala meesha ugu sareysa uu ka gaaray sida darteed al-kibriya marka la fasirayo waxa lagu fasiraa boqortooyo iyo weynaan isla socoto meeshaas marka waxay ka gaaraysaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu yahay sifooyinka u gaarka ah oo aan cidna la wadaagin oo asaga kaligiis uu leeyahay bayna kamid tahay sida darteed isa sareynta iyo iskibrinta qofka bini aadamka ee makhluuqa ah waa loo diiday waxaana loo diiday inuu asagu isu maleeyo inuu gaaray meel uu ismahadiyay oo asagu uu isku filan yahay sida darteed xataa Ilaahay baryadiisa inaad iska weynaysiiso lama ogola in alladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama daakhirin sida darteed xataa cibaadada Ilaahay inaad sanka ka taagto ama iska kibriso lama ogola man yastankif an ibadati wa yastakbir wa amma alladina istankafu wastakbaru sida darteed qof hada aragto Ilaahay ku dhiiranaya oo Ilaahay daacadiisa inta ka leexday xumaan sameynaya وقف قلبي سأوكجر قيب اسمه هذين وأسوي نفتي سنتو عاشقي أسوي إسجعلادي إسلوين هذي النبي عليه الصلاة والسلام وكان لها لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر هذه مر قلبي أي سوقش إن هذه سيرم هذه سو وحوالها كبر أو كسوق لي جنة إنا قشو حرام بكانوا قنسا وعقل النبي عليه الصلاة والسلام يري قف كستا أو سهلا ضدك أفضل ضدك أودو إلهي wuxuu ka xarimay inuu naar galo yani waxay ku tusinaysaa markasta oo aad dadka u fududaato oo dadka wax u sahasho inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku fududeynayo inaad janno gasho naartuna ay ka cararayso sadarteed Umar ibn Khattab radiyallahu anhu marka ay wufuud carabta u yimaadaan oo guulo fara badan uu gaaro oo arko inuu meel aad iyo aad maqaamkeeda u sareeyo uu gaaray wuxuu sameyn jiray dadku biyaha u dhaamin jiray dadku caagada inta u qaado ama weelka wax lagu dhaansanay aad oo ceelka tago dadka biyaha u dhaamin jiray saadartay saxaabada qaarkood ba inta u yimaadaan bay waxay ku oran jireen adoo amiirul muuminiin ah oo dadkii oo dhanba ku ogol yihiin oo xukunkaagi baahay oo meel kasta gaaray miyaad dadka inta feel la gasho biyo dhaaminaysa markaas wuxuu oran jiray xoogaa waxaan ka baqay inaan kibro maadaama intaasoo awooda iyo intaasoo guul aan helay sida darteed qofka muslimka dhaqanka laga rabo waxa kamid ah markuu arko inuu yara kibri rabo maskaxdiisu ay u sheegayso inuu ismahadin rabo inuu yeesho akhlaaq tusinaysa meel aad iska qabato aad iska hakiso inaad hesho waxa la wariyaa Sheekh Shacraawi Allahu naxariiste marbu meel muxaadara ka jeediyay markaas wuxuu arkay muxaadarada in aad loo yimid dad fara badan ay yimaadeen oo madax timid wuxuu arkay in aad iyo aad mujtamaca dhexdiisa uu qof weyn ka noqday markii uu meeshii ka soo laabtay asagoo wiilkiisa la socda oo meel wada lugeynaya wuxuu ku soo leexday masaajid jidka ku yaalay
wuxuu iska dhigay qof masaajidkii uga baahan inuu shaqo yar kusoo qabsado ama masquul ka soo galo ama salaad ku tukado markaasuu intuu dharkii iska siibay oo meel gaara dhigay oo masquulihii masaajidka wuxuu ugu dhaqaaqay inuu nadiifiyo markii la daahsaday baa loo yimid markii loo yimid oo waxaa lagu yiri waan daahnay maxaa kugu dhacay mise waxaaba la arkayba asagii oo dharkii intuu iska siibay fududeeyey dhar khafiifa soo reebtay masquulihii dhaqaya markii la weydiiyeyna wuxuu yiri waxaan isdareemay markaan arkay dadka sida ay igu soo baxeen anigii xoogaa isla weynaaday oo isqaadqaadaya markaasaan waxaan damcay buu dhahay inaan nafta aan edbiyo marka sifada isla weynidu waa sifo ilaahay keligiis uu leeyahay ilaahayna uu mutaystay oo asagoo mudnaan uu ku gaaray uu xaq ugu yeeshay inuu heerkaas gaaray inuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga awoodda oo dhan iska leh maadaama uu awoodda oo dhan iska leeyahay hadda way u gaartay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu asaga keligiis yeesho sifada alkibriya ina allaha calaa kulli shayin qadiir wa kaana allahu calaa kulli shayin muqtadira midda labaadna ilaahay subxaanahu wa tacaala wax u dhigma ma jiro wax la midana ma jiro yacni ilaahay qur-aankiisa waan ku dhahay laysa kamithlihi shay walilaahi almathalu alaclaa sidaa darteed maadaama ilaahay aan cidina u dhigmin cidina sifadiisa lahayn cidina tilmaantiisa lahayn cidina magaciisa lahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu gaari karaa inuu sifada alkibriya ay asaga keligiis u gaar noqoto ilaahay subxaanahu wa tacaala huwa alawalu waalaakhiru waalzaahiru waalbaatin khalqigiisa oo dhanna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu arkaa laakiin ayagu ma arkaan wax kasta oo khalqigiisa ay samaynayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu u jeedaa walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ilaa bima shaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa xukunka haysta oo amarka dunida lagu kala xukumaya haysta subxaana alladii biyadihi malakuutu kulli shay maadaama uu xukunka asaga haysto hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu gaari karaa sifada inuu asagu noqdo alkibriya ama uu yeesho sifada ah inuu heerkaas ka gaaro asaga keligiis uu lahaado maadaama asaga keligii la caabudayo asagana uu nolosha hayo dalika biana allaha huwa alxaq wa annahu yuxyi lmowta ilaahay keligiisna uu wax abuuro asagana uu khalqiga sameeyo antum takhluquunahu am naxnu alkhaaliquun sidaa darteed ilaahay asagaa bixiya xikmadda yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kathiira ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa baan anaga ku wardinaa oon ku tasbiixsanaa tusabixu lahu samaawaatu sabcu waalardu waman fiihin haddii aa wax u baahato oo wax cariiri kugu noqdaan ilaahay baad aadaysaa waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan ilaahay asagaa haya cizaynta iyo guusha asagaa haya dulliyeyntana asagaa haya oo ku jabinaya qul illaahuma maalika almulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلهي سبحانه وتعالى إساقا دنبغا دافا إساقا نحريستا إساقا عقابا سادرتيد إلهي قرآن كيسا كله عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء إلهي سبحانه وتعالى إساقا كلغي بالعابدا هدي إله يبدا العابد لها دنيدا نوضا ويبا وريري لهيد وان اسكو دحياعي لهيد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إلهي سبحانه وتعالى إساقا نمعدا بني آدم كأو هايستو إيا خلقك أو هايستو أو دان أساقا سي من الله حساب كره وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وحو إلهي سبحانه وتعالى قاري وحا أو سمينا إنا وحبا لقوي الدين كرين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سيدا درتيد إلها وحا أو سمينا وحبا لقوي الدين كرين أساقا قاري كره awoodda iyo sifada magaca ah almutakabir inuu asagu weynaado asagu ismahadiyo maadaama wuxuu sameeyo aanan waxba laga weydiinaynin ilaaha marka sifooyinkaas leh ee awoodahaas leh baa mudan inuu yeesho tilmaantan aan leenahay almutakabir adiga marka makhluuqa ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray ee bini aadamka ah waxaa laga rabaa adiga laftigaaga waxyaaba lagu ogol yahay baa jira inaad iska weynaysiiso ama aad ka shaqayso inaad ka weynaato waxaa ka mid ah jahliga aqoon darrada inaad ka weynaataa laga rabaa ood cilmi ku bedesho qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun waxaa kaloo lagaa doonayaa inaad ka weynaato wax kasta oo adiga sharafkaaga dhaawacaya diintaada dhaawacayo akhlaaqdaada dhaawacayo waxaa kaloo lagaa doonayaa inaad mar walba yeelato barnaamij aad uga hortegi karto isweyniinta ama kibirka ama ismahadinta waxaad uga hortegi karto waxaa ka mid ah inaad noqoto qof isla xisaabtama oo isfiiriya hadba xaaladiisu meeshay marayso waxaa kaloo laga rabaa inaad dadka kale taladooda dhagaysato oo aad u ekaato qof tala aruursanayo waxaa kaloo laga rabaa inaad xasuusnaato in ilaahay subxaanahu wa tacaala
wax walba asaga bixiyo maadaama ilaahay wax kasta asaga bixiyo adiga meelaad ku kibirto ama aad isku mahadiso maba haysatid sidaa darteed waxaa laga rabaa inaad noqoto qof khalqiga ilaahay u jilcan waxaa laga rabaa inaad noqoto qof adoonka ilaahay ah oo adoonnimadaas ay keenayso inay awooddaadaba maxduud tahay oo awooddaada awood xakamaysan ay tahay lagana rabaa dadka mu'miniinta inaad u jilcanaato inta aan mu'miniinta ahayn aad ku adkaato wallahu ta'ala a'lam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh isaga waduudahan tashiga lala wadaagayne isagan wuxuu doonayaba cidi la waastayne waxba kama qarsoon oo qalbigu wahan hadduu yeesho wixii waliba wow waadax iyo waasac maalinaahi alwakiilu magaceesu waa warisaan dhimane